aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Nuur lacagaha inaan aruuriyo waxa igu dhaliyay maalmaha kamid ah ayaan lacag meel ka qaaday lacagta markaa meesha ka qaado waan garan waayay Allah u naxariisto hooyaday markaas noolada u tago lacagtan hooy magaceed marka way igu tiri inta xoogaa si ii dacaayadaysa kaftana way igu tiri lacagta lacag noogu dambayso lacagtan kumiya la yiraahdo waa shan Soomaali subaxaas waxaan ka fakiray adiga oo dawladii joo jirta inta dhashay waliba iyadoo ciidankii booliiskii iyo nabad sugidii iyo militariga shaqeynayaan xasuustaada ku jiraan say oo kaayeen gaadiidkii wateen iyo meelaha deganayeen qaar kamid ah hadii lacagta Soomaaliyeed aqoon wada jiilka dambe ee adiga ka sii dambeeya ka sii dambeeya kan dhalan doonay mustaqbalka adduunku soo noqon doona yaas u maqan maadaama aan dawladda jirin subaxaas waxaan go'aansaday inaan ka bilaabo kumigi hooy u dacayadeysay oo canaanata kaas buu ahaa kaasaan ka bilaabay alxamdulillah ilaahay wuxuu ugu guuleeyay markii la sharaxay hooy sharaxday ka bacdi anigu dhalata lacagta inaan aruuriyo marka wuxuu inta bilaabay xoogaa shilimaadaan isla helay ayaa dadkii waxay bilaabeen igu dhiirigeliyaan oo qaarkood yiraahdaan anna waxbaan hayaa ku dar oo qaarkood yiraahdaan intaan haysaam iga gadan oo ka iibsho markii wixii bateen oo sidaan oo kale hadda abadhantiga u noqdeen wax tira badan u noqdeenna qof kasta waa ugu hambalyeynaya qof kasta waa ugu taageeraya qaarkood waxay leeyihiin anna qayb isii marka waa way badan tahay dhiirigelintu hadda aad u xoog leedahay waagi bari wax la yaab la kulmaa waxaan ogeyn oo inay jiraan ba aanan ogeyn waxa aan raadinayay marar badan waxay ahaayeen waxaan aqoon raadinayay tusaale hadda albumkan oo kale lacaga ka buuxa noqolada noocaana inay jireen horan uma aanan arag la igamana sheekayn anama aanan ogeyn marka anigoon ogeyn aan raadinayay famisa oo lacagta aan raadinay masaanay u akayd waruux ma intaanay ahaayeen saddex arrimood igu adag kow shayga helitaankiisu adag markaad hesho lacag baa kaaga baxaysa lacagtuna waa adagta dad Soomaali iska maqada dhirgaan aan nahay marka labada caqabada taagan oo jira caqabada saddexaad waxay tahay inta lacagti calashaan anu guri lamahay nin Kristaan ahay hadba xaafadan degan uga guuraa inta anu alaabteeda raranayo in ka badan ayaan daldalaa lacagta kaliya iyo alaabta taariikhda hore kaydka marka caqabada ugu daran lacagtaas waa lacagtii boqortooyada u juuraan ugu xiliga dheeraad waxa la sheegay qarnigii 7aad ee miilaadiga inay soo aasaasantay qarnigii 17aadna ay burburtay marka lacagtaas lacagta ugu cimriga dheer waaye waxa ku dhex jira boqortooyin kale oo waxa jiray boqortooyo ayadana xilli kooban ka talinaysay maxaan ku raahdaa koonfurtan Soomaaliya qayb ka mid ah si boqortooyada galidii oo kale way ku dhex jirtay waxa la yiraahdaa noocan xoogaa ka waaweyn moogtay adduunyadu dib ay birta u soo casriyeynayay mid yar yartaana waxa iska la boqortooyada u juuraan midaan xoogaa yar waaweyn waxa iska la boqortooyada galidii marka aan barbaaray sidaasan taariikhiyan ku ogaaday waxa jira boqortooyooyin kale oo ayaguna ka jiray gudaha Soomaaliya boqortooyinka markii la isku daro Soomaalida wuxuudiyoon kala soocnayn wayna badiyeen oo haaf jawaan amal waa halkaani ku jira waxa jira markii qarnigii 7aad markii la soo gaaray lacag caalamiyeed adduunkana ka wada socoto liira Maria Teresa ayaa Soomaaliya ka socotay Maria Teresa hadda inta ma taalo Soomaaliya aan qaadin waan helmaamay xaafadda taalaaydo badan lacagtaas qalina way lahayd dahabna way lahayd markii dambe idoo feegaha la sameeyay oo idoo birha jirta laakiin qalinka u eg lacagtaasuna lacag caam ah waxay ahayd isticmaalayay xilliga isticmaalka Talyaaniga iyo Ingiriiska ka hor iyo Faransiiska oo Soomaaliya shan Soomaaliyeed ay mideysnaayeen marka inta aan ka helay kana xasuusto taariikhiyan lacagaha isticmaal soo noocaas ay ahaayeen ma jirin lacag warqada caalamkana ciriiri bay ku ahayd in la isticmaalo lacag warqada waxa la sheegaa hadda markii xilligan la joogo 700 sano camal ay ku eg tahay lacagta warqada in la isticmaalo marka lacagahanina waxay ka badan yihiin 1000 sano ka badan yihiin dhammaan caalamku wuxuu isticmaalayay waxyaabo yar yar oo noocaan oo kala ah oo ku sano Istanbul lagu dhuftay marka lacagtii la isticmaalka ka hor nuxurkeedu waa kana wadanka waxa soo maray lacag la yiraahdo Soomaali Italian Pesa waxa u horeeyay 1901 waay 1901 Talyaanigu wadanku wuxuu qabsaday 1893 ayuu wadanka si toos u qabsaday intuu xeebaha joogay iska dhaafay meelaha ku gaafureeyay 1893 haduu qabsaday 1901 lacagtaan soo saaray Soomaali Italian Pesa la yiraahdo one Pesa Pesa xilli waxa jira boqortooyinka soo baxa wadanka ay cumaanaysan sicid barqash oo kale lacagii xilligaas jiray waa kuwana lacag islaamka ahaa oo dawladda islaamka kaliya jirta way Uthmaaniyiinta lacagtooda wadanka way ka socotay idoo qalinaan haya lacag rasmi ah oo dawladda Soomaaliyeed leedahay oo dawladda Soomaaliyeed soo saarto xor ah waxa ugu horeeyay 62 lacagtii anu waxaan u aqaan lacagtii waa laydo lacagtan kontonka kunoo shilin halka nuqul oo konton kunoo shilin leh
oo leh hal nuqul oo 20 kun oo shilin ah oo leh hal nuqul oo 2 kun oo shilin ah lacagtan waxaa la sameeyay 2011 xilligii maxamed saad bare lacag la sameeyay dhexda waxa uga jiray madaxii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan duubkii oo daraawiishtii lagu ikraamayay marka tan oo kale hadda waxa yaala waxa ku sawiran maxaan ku radaa tiyaatarka qaranka tan oo kale masjidka Isbaahaysiga ku sawiran kuwan kale waxa ku sawiran maxaan ku radaa dhul iska qurux badan oo Soomaaliyeed iyo beero iyo waxsaasa ku sawiran waxa marka taariikhdeena inaan aruurino raadadkanagi aan baabi'ino waa shayga ummadnimadeena iyo dajira inaan ahayn qeexi karo ma garanaysaa maanta haddii lagu yiraahdo maxaa cadaynaya inaan qarnigii 15aad uma jirtaa ahaydeen ee aadan keenin wax qarnigii 15aad jiray ama qoraal ha noqoto ama sawir ha noqoto ama agab la isticmaalay ha noqoto ma garanaysaa horta haddaadan keenin wax ku marqaat fura ma jira qarnigii 15aad inaad jirto bal iska